sida caadada ah asxaabay bini aadamku waa isku dayo joogto ah inuu wax cusub soo kordhiyo hase ahaatee abbaare 1969kii ayaa lagu soo waramaa in uu ninkii koowaad ka degay dayaxa walow dad badani jiraan kuwaas oo aan aaminsanayn markii loo eego diinta islaamka waa macquul maadaama uu dayaxu ku yaal samada koowaad taasoo u furan bini aadamka balse ilaa markaas waxaa isdaba socday dadaalo ay ku wada jireen wadamada quwadaha caalamka ee sidii lagu gaari lahaa meerayaasha sida Mars oo kale bulshadooduna u degi lahayd fiidiyowgan kooban waxaan ku eegaynaa sida uu u dhacayo tartankan iyo bulshada ku tartamaysa tartankan markii hore wuxuu ahaa mid u dhaxeeya wadamada sida Mareykanka, Ruushka, Shiinaha iyo kuwa kale balse waayahan dambe waxaa hormuud ka ah shirkado iyo shakhsiyaad hantiilayaal ah Elon Musk, Jeff Bezos iyo Richard Branson ayaa tartamayaasha ugu cadcad ah shirkadahana iska leh hase ahaatee weli booska kama aysan bixin NASA oo ah fuliyaha mishinkii loogu magac daray Mission Land Moon ee 1969kii u fududeeyay inuu Mareykanku noqdo wadankii koowaad ee cagaha dhiga dayaxa NASA waa cirbixiyaha ugu caansan caalamka oo tiknoolajiyada badan ee casriga ah samaysa ee ka faa'iideysiga meerayaasha deriska la ah dhulka quseeya NASA waa siiyaha mashaariicda Space Race ee shirkadahan aan soo xusnay laakiin se aan yara eegno tartankan ugu khatarsan ee saddexdan hantiile meesha uu marayo iyo inuu macquul yahay in aan dhulka ka guuri karno hase ahaatee taasina waa aragtidooda Jeff Bezos waa ninka ugu qanisan caalamka sida ay qoraan saxaafadda iskana leh website-ka caanka ah ee Amazon wuxuu sidoo kale leeyahay shirkad ku hawlan sahaminta meerayaasha sida Mars ama dayaxa sanadkii wuxuu shakhsiyan ku maalgeliyaa mashruuca ka guurista dhulka lacag gaaraysa 1 bilyan asaga oo sharaxaya shirkadda Blue Origin iyo hadafkeeda ayuu sidaan yiri for me, I have been interested in rockets, space travel, propulsion. tartamaha labaad ayaa ah asna ninka la yiraahdo oo saynististaha ah Elon Musk oo u dhashay wadanka South Africa hase ahaatee ku nool dalkaas Mareykanka sheekadiisuna ay tahay mid aad ka yaabayso markaad si fiican u dhageysato Elon Musk waa asaasaha iyo mulkiilaha shirkadda SpaceX oo kaalimaha ugu horeeya kaga jirta sidii looga guuri lahaa dhulka wuxuu sanadkii mashruucan ku maalgeliyaa $100 milyan dhawaanna wuxuu samaystay internet asaga khaas u ah oo cidina la wadaagin sida ay shirkadiisu barta Twitter-ka ku soo qortay Elon Musk oo ka hadlaya asna wuxuu ku cabirayaa aragtidiisa muuqaalka sidaan I think we gotta have a base on the moon, you know. Richard Branson waa bilyaneer u dhashay dalka Ingiriiska iskana leh shirkado badan oo caan ah tartankan wuxuu kaga jiraa kaalinta saddexaad shirkadiisu waa Virgin oo samaysa qalabka cirbixiyaasha wuxuu shakhsiyan ku maalgeliyaa sanadkii $100 milyan si uu u hirgeliyo ka guurista dhulka hase ahaatee su'aasha aad isweydiinayso ayaa ah maxaa loo tartamayaa lamaba hubee in la tegi karo meelaha ay ka hadlayaan iyo Mars